laascaanood waxay casuumaysaa hubka noocyadiisa kala duwan uu ugu yaryahay BKM-ka madaafiicda suukaha. waa maalintii labaad ay ku sugan tahay xaaladdan magaalada laascaanood. 7 cisho shir u socday garaadada gobolka Sool waxay go'aamiyeen barakicinta shacabka, burburinta nabadda iyo dhammaan khalkhalgelinta xasiloonida geeska. xukuumadda Soomaaliland waxay ogolaatay waji kasta oo lagaga baaqan karo dagaal. garaadada gobolka Sool waxay soo dedejiyeen waji kasta oo lagu gali karo dagaal. caawa xaaladda ay ku sugan tahay laascaanood waa midhihii ay beereen garaadada gobolka Sool. madaxweyne biixi iyo madaxweyne geelle waxay beesha caalamka iyo ururka IGAD gaarsiiyeen in laascaanood ay ku dagaalamayso argagixiso caalami ah. baaqaas ay jeediyeen haddii beesha caalamku qaataan, laascaanood waxay geli doontaa go'doon caalami iyo dhanka bini'aadantinimada. Soomaalilandna waxaa laga taageeri doonaa la dagaalanka argagixisada. istiidooyinka horyaal weli ma jiro in dib loogu laabto miiska wadahadallada. garaadada gobolka Sool oo maanta hadlay waxay sheegeen in xaaladdu culus tahay, dhammaanna Soomaaliland ka jirtay adeegyada aasaasiga ah. garaadada gobolka Sool waxay ku baaqeen in la sameeyo xabad joojin degdeg ah, isla markaana loo tulo shacabka gobolka Sool. tan iyo intii uu socday dagaalku ilaa shalay dhimashadu waxay kor u dhaaftay 30 qof iyo ku dhawaad 40 dhaawac ah. welina ma muuqdo wax tanaasul labada dhinac midkoodna. Sool waxay ku dhacday god madow ay adag tahay soo laabashadeedu maadaama ay nabaddu faraha ka baxday. Soomaaliland waxay markii saddexaad ku eedeysay garaadada gobolka Sool inay ka dambeeyaan rabshadaha hadda ka socda gobolka Sool, isla markaana waxay ku tilmaantay Soomaaliland garaadada inay yihiin argagixiso caalami ah. taliyaha ciidamada Soomaaliland Nuuxtaan Ismaaciil wuxuu sheegay inaanay Soomaaliland awoodeeda military dul dhigin laascaanood, isla markaana loo tulayo shacabka. balse waxaan meesha ka marnayn in Soomaaliland adeegsatay hubka noocyadiisa kala duwan, isla markaana burbur xooggan uu gaaray magaalada dhexdeeda. halka warka kala socotaan waa Wardheer Media News iyo anigoo ah Janna Gale.